bidhaamin kale oo ku saabsan adeegga sarifka lacagaha qalaad ee Forex oo Soomaaliya hadda si xawli ah uga shaqeeya. Qasaare iyo faa'iido waxaa leh hawl kasta oo la qabto, sidaas darteed waxaan rabnaa in aan Soomaalida si cilmiyeysan u fahansiino adeeggan waxtarkiisa iyo waxa ay ku qoonsadeen xubnaha xilalka haya ee dawladda qaarkood iyo shirkadaha tunka waaweyn ee xamar ku yaala. adeegga Forex oo aamusnaan uga shaqeynaya Soomaaliya dhowr sano ayaa si xoogan u soo shacbaxay 2018. cadaadiska dawladda ay ku hayso adeegga Forex iyo dhalinyarada ka shaqeysa ayaa ka soo bilaabmay in midba mar si gooni ah loogu goodiyo shirkadaha ka shaqeeya Forex-ka ee ka howlgala xamar. waxaa bangiyada Soomaaliya lagu amray in ay xiraan dhammaan akoonnada kala duwan ee shirkadaha ka shaqeeya Forex-ku ay ku leeyihiin bangiyada ku yaala Soomaaliya si loo curyaamiyo lacagaha shirkadahaas. inkastoo aan si waadax ah loo ogeyn waxa ku riixaya dawladda inay hor istaagto hal abuurkaas oo dalka ay keeneen dhalinyaro Soomaaliyeed, halkii ay ahayd in dawladdu ay garab istaagto maadaama ay buuxiyeen kaalin bannaanayd oo ka faa'iideysi Soomaalinimo mudnayd. in suuqan ay ka faa'iidaan dad Soomaaliyeed halkii lacagahooda ay ku cabaysnaan lahaayeen akoonno waxa ay dawladdu ku diidan tahay, iyada ayaa ka jawaabi doonta. laakiin waxa muuqda ayaa ah in dawladdu wado beegsi xoog leh oo la rabo in lagu cirib tiro Forex-ka iyo dhalinyarada ka shaqeysa ee Soomaaliya. waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso waa maxay sababta bangiyada iyo shirkadaha waaweyn ee Soomaaliya ay ula dagaalamayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee adeeggan hormuudka u ah. tusaale fudud, waxaa dhammaan dadku ay la baxeen hantidoodii tiilay bangiyada, waxaana haawanaya akoonnadii shirkadahaasi ay ku lahaayeen dadka Soomaaliyeed maadaama aysan wax faa'iidaha ka helayn oolidda lacagtooda. taas beddelkeedana Forex-kan marka ay ku biiriyaan iyo shirkadaha ka shaqeeya ee xamar lagu beegsanayo ay helayaan faa'iido ballaaran. laga yaabee in mararka qaar xitaa ay bangiyadu isticmaalayeen dadka Soomaaliyeed lacagaha u yaala iyada oo aan la ogeyn. haddase ka hadli mayna taa. dhaqaalayahanada Soomaaliyeed ayaa qaba in adeeggan uu Soomaaliya muhiim u yahay maadaama shirkadaha lacagaha kaydiya ee waddanka ay yihiin kuwa aan samaynin faa'iido ama aan ku shaqayn lacagaha loo dhiibto marka loo eego si la og yahay oo faa'iido ay kaga timaado si la mid ah Forex-ka. dawladda oo ay ahayd in wax soo saarka iyo hal abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed ay taageerto ayaa isku dayo badan u samaysay in la aamusiyo shirkadahaas, balse maskaxda fiyow ee dhalinyarada ka shaqeysa Forex-ka ayaa hagardaamooyinkaas oo dhan ka badbaaday. faa'iidooyinka Forex-ka ka shaqeeya Soomaaliya waxaa ka mid ah adigoo jooga gurigaaga in ay shaqeyso lacagtaada, dabadeedna aad hesho lacag xoog leh oo faa'iido badan ay sabab u tahay in uu adeeggaasi ka shaqeeyo Soomaaliya ee Forex. beegsiga lagu hayo shirkadaha ka shaqeeya Forex-ka ee ku yaala Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka, ayaa sii kordhay sanadkan bilowga ah, iyadoo dhowr jeer la baahiyey warar lagu sheegayo in shirkadaha qaarkood ay lacag la goosteen. wararka qaar ee aan helayna ayaa tilmaamaya in shirkado waaweyn oo ka howlgala Soomaaliya iyo xubno ka tirsan dawladda ay isku kaashanayaan sidii dadkaasi Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada ka shaqeeya adeeggan Forex-ka ay uga hor istaagi lahaayeen. dadaalada socda ee arrimahan Forex-ka lagu difaacaya waxaa ka mid ah in ay samaysteen urur ay ku midaysan yihiin shirkadaha ka shaqeeya Forex-ka, iyadoo loo sameeyey guddi uu horjoog u yahay guddoomiye, taasoo muujinaysa sida ay diyaar ugu yihiin inay wada hadal la galaan cid kasta oo tabasho qabta. in ka badan 50 sano ayuu ka shaqeynayay adeeggan Forex-ka dunida. Afrika iyo Soomaaliyaba waxa uu soo gaaray sanadihii la soo dhaafay, iyadoo dawlado badan ay dalalkooda u ogolaadeen inay ka shaqeeyaan walow ay jiraan dalal laga diiday. inkastoo markaa dawladaha diidayana ay sheegayeen sababo rasmi ah oo lagu qanci karo, laakiin ilaa iyo hadda dawladda dhankeeda iyo dadka kale ee shirkadaha ah ee arrinkaasi la sheegay inay gadaal ka riixayaan ayaan soo saarin war rasmi ah oo la xiriira sida ay tahay in loo wajaho shaqada dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Muqdisho iyo gobollada ee arrimaha Forex-ka ka shaqeeya. dadka Soomaaliyeed qaarkood ayaa sheegay inay aad ugu baahan yihiin adeeggan maadaama lacagtoodii iska tiilay bangiyada inta la soo baxeen ay bil kasta dhalayso faa'iido. dhalinyarada ka shaqeysana adeeggan welisan yihiin in adeeggu uu yahay mid kobcinaya dhaqaalaha dadka Soomaaliyeed maadaama qofku isaga oo aan shaqo tagin uu ku xisaabtami karo in uu helo lacag dheeraad saabsan mid ay dhalayso lacagtiisii caadiga ahayd.